والله أنا ما كذا وحنا نقدر يالله شكله والله هو عم عمشة لو شهر باول يسقون غبي الشيء كان دعي ولا أكسل يربي استحمر يحيل كلا والله قضي ولا اللي قال يحدث باغطي ولا سعد يسبق ولا كل شيء الشيء ولا قدال كان يلا واحد هذا يروح غبشة بس warar baa sheegaya in ciidamo hubaysan ay deegaanka yimaadeen iyagoo halkaasi xoog ku soo degay waxaad leedahay waxa ka horreeyay heshiis u dhaxeeya beelaha Naaye Axmed iyo Sacdiyo dadkii heer guuraaga iyo xoolo dhaqatada waxaanu arkaynay iyagoo deegaanka si nabada ku wada cabaya oo ceelkii dib u qoday dadkaasi xagee bay ka soo hayaameen ceelka wadalkii xaggan hoose ka soo hayaamay meeshii ilaa ceelkooda qotay nabadgelyada ku bateen wanaag iyo heshiis baa lagu yahay meel dib ka jiro iyo meel dhibaata ka jirto iyo meel colaad ka jirto midna maaha in beelaha Naaye Axmed iyo sidoo kale Sacad Yoonis ay muddooyinka ugu dambeeyay ay ka wada hadlayeen xaaladda nabadgelyo ee deegaankaas iyo sita u dhaxaysa dadka iyo deegaanka in dadkii deegaanku ay nabad ku wada noolaadaan isla markaasna arrimaha nabadgelyada laga wada shaqeeyo ma ceelkan ay yimaadeen iminka arrimahaas ay ka mid yihiin waa nabadgelyo waa heshiin waa dad wada degay waa dadaan ceel ka dhaxay dad baa doqobagaado ka dhex wada ودولا يكروش من الرجل هوش على هوش بالضبط هوش الله يحوى هوش فهو صاحب الله هوش waa gartay maxaad calow beeshaas aad afka ku dhawaaqday ama aad ku sheegtay aad ugu sheegaysaa in iyagu yihiin dadka rabshada iyo fidnada beelaha halkaas ugu degan ka dhaxay inay yihiin انت كل حسبك وهلك على الدولة بالله قبشوي وحبال لك سميه دينيوي وحنا لا يعني مصري على واحد ولا دينية وحلا والك واحد إلى المشكلة inta aad u diraysid maxay yihiin dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka kale ee soo warinaya in deegaanka ciidamo kale ay ku soo duuleen maxay tahay calow maadaama aad ka soo jeedid deegaanka kale ee Naaye Axmed isla markaana wararkii ugu dambeeyay deegaankaasina aad ka warhaysid waxaan leeyahay nabad baa lagu qabalay waxaan leeyahay deegaanka waa lagu joogaya waxaan leeyahay nabad baa lagu wada cabaya waxaan leeyahay nabadgelyo ummadda kale soo degaysana nabad baa loo sheegay nabad annagu raggiisa oo booliis ka tegay oo waayeelka ahaa oo meesha yidhi xal lagula hadlay waa gartay nabad baa halkaa laga qabalay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa maayirka degmada biyo guduud ee koonfurta gobolka Sanaag waxa uu iga waramayay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanka Dogoble oo la sheegay in ciidamo hubaysan ay halkaasi gaareen isagoo maayirku wararkaasi beeniyay waxaana dadka ugu baaqay inay ka waatoobaan wararka been abuurka ee la iska horkeenayo bulshada walaalaha maayir aad baad u mahadsan tahay